15 sano baan u malinaya baa laga joogaa markii Islamic Bank la aasaasay waxaan rabaa inaan ku bilaabo oo iraahdo qisada Islamic Bank ama guud ahaanba baac mushtariga Soomaaliyeed waa qiso la xiriidha halgan dadaal iyo horumar waxaynu oran karnaa waa sheekada ama the story of the Somali people in the last 20 years ama sodonka sano u dambeysay dad soo kabanaya horena u socda kaararkaas ayaa ka turjumaya halka la marayo nimankaas Suudaan bay joogi jireen anagu Hindiyaanu joogi jirnay ku xigeenka bangiga ayaanu Hindiya isla ahayn oo halka fadhiya Saciid de shilinka lacagta ka nooguma iman jireen waxaanu xawaaladahan u tagi jirnay oo markaas aad safraysaado magaalooyinka qaar kaliya ku yaaleen hadda laakiin waxa laga yaabaa badhan halkan aad ka taabato in wiilkaaga oo jaamacada Hindiya ka dhigta ugu dirto waalidkaaga oo dhakhtar Turki u jooga ugu dirto China-na aad kaga soo adeegato waxa rabaa inaanu annagoo ku hadlayna afka ummadda Soomaaliyeed aad u adeegtaan idinkoo waliba garabka dawladda uu idinka maqnaa inaanu run ahaantii idinka mahad celinno doorka wax ku oolka ee aad ummadda u gashay anigu dadka aaminsan baanahay in shirkadda Soomaaliyeed la maalgeliyo garab la siiyo haddii kala birri markaynu adduunka isku furno mid China iyo ka timiba Faransiis baa imanayso dardaraysaba marka inaanu idin daryeelno sida odawaay rag ka dhawaajiyeen baan ogolnahay wasaaradana xalala shaqeeyo teknolojiyada bangiga dhexe xalala shaqeeyo xukuumaduna waxay diyaar u tahay inay baac partnership la sameeyso public private partnerships oo aynu economic transformation la taaban karo sameeyno